Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. faahfaahin ka soo baxaysa dagaal al-shabaab iyo ururka daacish ku dhex maray gobolka bari shirkii garowe oo uga socday madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo la soo gabagabeeyay warmartiyeed laga soo saaray doorashada kursi ka banaanaa golaha shacabka oo maanta lagu qabtay baydhaba taliska ciidanka asluubta oo sheegay in maxbuus ajnabi ah oo ku xirnaa xabsiga dhexe uu ka badbaaday isku day dil oo ay ku sameyn rabeen maxaabiis kale oo ku eedeysan al-shabaabnimo isutaga imaaraadka carabta oo Soomaaliland u tababarayo 15,000 oo askari ra'iisul wasaare Kheer oo gaaray magaalada Nairobi kulamo la qaban qaabinayo inay dhex maraan isaga iyo madaxweynaha wadankaas toogasho ka dhacday dalka Mexico iyo madaxweynaha Venezuela oo ka soo horjeestay baaqiyo kaga yimid qaar ka mid ah dalalka midowga Yurub warshada isbuunyada Shaakir taya iyo taabagal weeye habeen wanaagsan waa habeen isniin ah taariikhdu waxay ku beegan tahay 28ka bisha koobaad sanadka 2019 ku soo dhawaada faahfaahinta warka habeen magaalada garowe waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii u dhaxeeyay madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyadoo qodobana laga soo saaray shirkaasi ayuu maxamed axmed ayaa faahfaahinaya isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay madaxtooyada maamulka Puntland ayuu madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani warbaahinta ugu warbixiyay kulamadii ugu dambeeyay ee Garowe ku dhaxmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada madaxweyne Dani ayaa sheegay in kulanka ay wada qaateen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo ay isla garteen in kulan kale ay wada yeeshaan kulankaasi oo uu sheegay in maamulka Puntland ay marti gelin doonaan waxa uu tibaaxay in shirkaasi uu yahay mid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka codsaday in ay marti geliyaan waxa uuna xusay in uu kaga mahadceliyay in madaxdaasi meel qura Puntland ay isugu keentay waxa uuna ku nuuxnuuxsaday in Puntland ay sharaf u tahay in khilaafka soo jiitamay ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xal looga gaaro Garowe kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka isku arkeen wuxuu gogol xaar u noqday in kulamadii u dhaxeyn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen kulankaasoo loogu gogol xaarayay in la isku cafiyo waxyaabaha khilaafka shakhsiga ah lagu saaro danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo howlaha iyo ajandayaasha dhabta u ah dowlad dhisidda si qoto dheer loo galo oo aad loo lafaguro si loo gaaro horumar shacabka Soomaaliyeed ay ku laanoonayaan runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda Puntland in ay gogoshaas martigeliso anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada Garowe horaan madaxweyne Farmaajo ayaa madaxda maamulada dalka ka jira ugu baaqay in ay yimaadaan Muqdisho si ay ugu wada hadlaan khilaafka u dhaxeeyo balse madaxda maamul goboleedyada ayaa ka biyo diiday inay Muqdisho yimaadaan kulamo ay yeeshaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa waxa uu horseedi karaa in xal waara loo helo khilaafkii soo jiitamayay tan iyo markii madaxweyne Farmaajo xafiiska la wareegay waa haddii ay isugu wada yimaadaan kulankaasi la iclaamiyay ee madaxweyne Farmaajo codsaday faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal al-shabaab waa kooxaha al-shabaab iyo daacish ku dhex maray gobolka bari waa berigii hore ee saakay dagaal bilowday ayaa soo gaaray gaballicii maanta iyadoo dagaalkana uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo ceelka Miraale oo qiyaastii 70 kiiloomitir u jira magaalada Boosaaso oo ah xarunta gobolka bari dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaaqa rasaas socotay muddo saacad ah oo labada dhinac ay isweydaarsanayeen inkastoo aysan dhaawac iyo dhimasho midna aan la shaacin inta waa midna aanay dadku sheegin in ay arkeen dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in ay al-shabaab ku mareen in ay dhulka wadooyinka ah waa in al-shabaab ay ku amreen in ay ka guuraan dhulka wadooyinka ah markii ay
tageen agagaarka ceelka Miraale. ma jiraan wax faahfaahin ah oo intaas dheer oo laga helayo khasaaraha. 18 bishii December ee sanadkii 2018 ayay ahayd markii al-shabaab iyo Daesh uu dagaal ku dhex maray meel aan ka fogeen dhulka buuraleyda gobolka Bari ee maanta uu dagaalku ka dhacay kadib markii dagaalyahana al-shabaab ka mid ah ay tageen dhinaca buuraha Galgala oo ay fariisimo ku leeyihiin iyaga oo duulaan ku ah fariisimaha ururka Daesh ay ku leeyihiin buuraha gobolka Bari. gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waceys Dhado oo aan arrintan kala xiriirnay ayaana inoo suuro gelin inuu nala hadlo, laakiin saraakiil ku sugan gobolka Bari waxay warbaahinta gudaha Puntland u sheegeen in dagaalka labada dhinac ay khasaare lixaad la isku gaarsiiyeen, isla markaana dhinacyadaas ay ku dagaalamayaan gacan ku haynta halka dagaalka uu ka socdo. taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xabsiga dhexe ee Xamar ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u soo gaareen nin ajnabi ah oo ku xiran xabsiga dhexe kaas oo isku day dil ka badbaaday. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada asluubta Soomaaliyeed ee maamula xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay fal isku day dil ah oo 26 bishan xilli habeen ah ka dhex dhacay xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. falkan isku day dilka ahaa oo sida la sheegay loo adeegsaday sakiin ayaa waxaa laba ka mid ah maxaabiista oo ku eedeysan falal la xiriira inay ka mid yihiin Daesh waxay u geysteen nin ajnabi ah oo isbuucii hore laga soo qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. taliyaha ayaa waxa uu sheegay in falka ay geysteen koox ka mid ah dadka ku eedeysan falalka la xiriira Daeshnimo, wuxuuna intaa ku daray in baaritaano ay ku hayaan sida uu ku gudbay waxyaabaha loo adeegsaday falkan isku dilka ah. ilmo dhowrtaan annaga sakiin iska daayay cidii jar xabsiga in la soo dhex geliyo wax imi karo laakiin sakiinta dhalcaalgaa lagu soo dhejina abarqawooyinka carada jooga say ku soo geliyeen ilaa hadda baaritaankeedii baan ku jirnaa ma naqaano. waxaa sacab in ay isku dayeen in ay wax yeeleeyaan kuwa yidhaahda jinnaan raadinayna maxaan ku idhaahdaa meel daran allah jinnadooda ka baxshay ma ogin annagu qaabka jinnada lagu raadiyo ta ilaahay xaggii loo doontaanayo qaabkoo jinno lagu doonanayo ilaahay baa lagu laakiin kuwa dadka dhiiggiisii naftooda jinnaan ku raadinaya yidhaahda yaaga ku jira sida hadda kuwa daacishka ah oo aan idiin sheegin ninkaasi ka badbaaday damacii ay damacsanaayeen waana ka guulaysanay inaanay waxba yeelin ninka way isku qolkuma xirra qolaba dembiya qolalka aad aragteen oo xabsigaani ka samaysan yahay qol kastaaba dembiile gaar ah marka isagu hadda ma ahan meesha ay isku dayeen in wax ku yeeleeyaan maxaabiista qolalka lagu rido. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa horey u amartay in ninkan ajnabiga ah oo laga shakiyay muddo xabsi lagu sii hayay si baaritaan loogu sameeyo. doorashada kursi ka banaanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Faysal Cabdilaahi ayaa faahfaahinaya. doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu doortay xildhibaan cusub oo ka mid noqonaya golaha shacabka Soomaaliya. 42 ergo oo codeysay ayaa dooratay Cabdulaahi Sheekh Maxamed oo helay 35 cod sida uu sheegay xubin ka mid ah guddiga doorashada oo ku dhawaaqay natiijada doorashada. laba ka mid ah codadkii la dhiibtay ayaa halaaway. waxaa kale oo 2 cod helay Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Nuur. guddiga ayaa sheegay in Cabdulaahi Sheekh Maxamed uu yahay xildhibaanka la doortay ee ergada ay doorteen. musharaxiinta koow Cabdulaahi Sheekh Maxamed may bahelay shancoda heli soddon shancoda heli sorry Cabdulqaadir Sheekh maldegayniya Cabdulaahi Sheekh Maxamed soddon shancoda heli
cabdulqaadir sheekh maxamed nuur lama cod iyo heli xasan macalin ibraahim walba ma helna xildhibaanka la doortay ee aan weli la dhaarin ayaa ka mahad celiyey sida ergada ay u doorteen islamarkaana wuxuu sheegay wakiilnimada shacabka ee uu helay inuu si dhab ah ugu shaqayn doono xildhibaanka kursigan ka geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray marxuum xildhibaan khaliif sheekh cabdulaahi dheere oo xanuun ugu geeriyooday 28 bishii abriil 2018 magaalada muqdisho waxaa booskan u tartamay ilaa 6 musharax oo 2 ka mid ah ay ka maqnaayeen goobta doorashada waxaase ugu dambeyn helay xildhibaan cabdulaahi sheekh maxamed oo noqday xubin ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo garoonka diyaaradaha ay ku soo dhaweysay wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Kenya Monica Juma. warbaahinta dowladda Kenya ayaa goor sii horeysay waxa ay shaacisay in ra-iisul wasaaraha uu casuumaad gaar ah ka helay madaxweynaha wadanka Kenya. hase haatee wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha uu yimid Kenya sidii uu fariin gaar ah u gaarsiin lahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. ra-iisul wasaare Kheyre ayaa bartiisa ku sheegay in booqasho rasmi ah uu ku tagay wadanka Kenya oo ah dalka ugu badan ee bulshada Soomaalida ku nool yihiin islamarkaana ah saaxiib muhiim ah waxaana uu tilmaamay in uu diiradda saari doono sidii madaxda dalkaas ay uga wada hadli lahaayeen xoojinta xiriirka labada dal. la dagaalanka al-shabaab lama oga fariinta gaarka ah ee uu u gudbin doono madaxweynaha Kenya hase yeeshee waxaa dhowaan ka dhacay magaalada Nairobi weerar ay 15 bishan ku qaadeen hoteelka Dusit la yiraahdo ururka al-shabaab kaasi oo lagu diray 21 ruux halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. safiirka Soomaaliya ee wadanka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaase sheegay in kulanka la qabanqaabinayo inuu dhex maro Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre inay uga wada hadli doonaan arrimo badan oo ay ka mid tahay la dagaalanka ururka al-shabaab. wuxuu ku yimid invitation rasmi ah ku yimid wuxuuna la kulmayaa saacadaha soo socda madaxweynaha Uhuru Kenyatta. taasina waxay astaan u tahay xiriirka weyn ee sii xoogeysanaya maalinta ka dambeysa ee u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya. Kenya wadan aad iyo aad muhiim ugu ah siyaasadeena arrimaha dibadda asbaabo gaar ah oo jira dartiis. asbaabaha waxaa ka mid ah marka ugu horeysay xuduud inaan la leenahay, xuduudkaasna inuu tension ka jiro oo security issue arrimo ku saabsan securityga. shabaab inay maaragtay meelahaas ka dagaal gasho oo ama Kenya dhibaatayso ama annaka dhibaatayso ama shacabka Soomaaliyeed ee beeraleyda ama xoololeyda ay dhibaatayso. tan labaad Kenya waxaa ku nool dad badan oo Soomaali ah aad u xoogan oo ganacsata ah oo runtii ganacsi xoogan ka wada wadankan. haddana waxaa weeye Soomaali badan oo wadankan Kenyaati u dhalatay oo haddana siyaasadda meelo fiican uga jira. waxa uu ahaa safiirka dowladda Soomaaliya oo fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. isutaga Imaaraadka Carabta ayaa Somaliland waxa ay u tababarayaan 15,000 oo ciidanka Somaliland ah. Rijaal Cabdi ayaa faahfaahinaya. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in qandaraaska dhismaha saldhigga weyn ee ay ka dhisanayso magaalada Berbera ee Somaliland ay ku guuleysatay shirkad lagu magacaabo Defes Marine taasoo qaabilsan dhismaha saldhigyada waaweyn ee dalalka Carabta ay ka dhistaan qaar ka mid ah dalalka caalamka. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda isku taga Imaaraadka Carabta ayaa lagu shaaciyay in ujeedka ugu weyn ee saldhigga Imaaraadka Carabta halkaasi laga leeyahay uu yahay in diyaaradaha ay ku nastaan xilliyada ay doonayaan inay fuliyaan howlgallo ku wajahan qaar ka mid ah dalalka aan ka mid ahayn xulufada dowladda Sacuudi Arabiya. laguma sheegin warka ka soo baxay xilliga rasmiga ah iyo weliba qandaraaska Somaliland ay ka heli karto saldhiggaasi weyn ee halkaasi laga dhisayo, laakiin warka wasaaradda arrimaha dibadda waxaa lagu shaaciyay in saldhigga wejigiisa koowaad la furin doono bisha Agoosto ee sanadkan gudihiisa islamarkaana halkaas ay ku shaqo bilaabi doonaan ciidamo badan oo ka mid ah dowladda Imaaraadka Carabta iyo 1515 oo ka mid ah askarta dowladda
imaaraadka carabta kuwaasoo somalilan deegaanadeeda laga soo aruurin doono kana shaqayn doona saldhigaasi. warka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan waxaa sidoo kale lagu sheegay in bisha November ciidamadaas ay si rasmi ah ay u shaqo bilaabi doonaan, iyadoona ciidankan ay yihiin ciidamo loo tababarayo dowladda imaaraadka carabta in ay saldhigaasi ay ilaaliyaan, laakiin laga soo xuli doono somalilan oo aysan noqon doonin ciidamo ka socda imaaraadka carabta ee halkaasi taga. waxaa kaliya oo saldhiga tegi doona ayaa ah tababarayaal si ay u tababaraan ciidanka la wareegaya halkaas oo ah ciidamo Soomaaliya. muran badan ayaa ka dhashay saldhiga dowladda imaaraadka carabta ay ka dhisanayso magaalada Berbera, waxaana si weyn kaga soo horjeeda dowladda dhexe ee Soomaaliya, Djibouti iyo sidoo kale qaar ka mid ah dalalka ku yaala qaaradda Afrika. danjiraha Soomaaliya ee wadankaasi Suudaan Cabdirasaaq Axmed Shoole ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidanka asluubta sareeyo guud Xaatim Al-Nuur Cabdulqaadir ayaa kala hadlay xaaladda maxaabiista Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalkaas kadib kormeer uu ugu tagay maxaabiist Soomaaliya oo ku jirta xabsiga Kobar. danjiraha ayaa uga mahad celiyay dowladda Suudaan fulinta codsiga safaaradda ee ku aadanaa in lagu wareejiyo maxaabiista Soomaaliyeed xabsigii hore ee ay ku jireen loona wareejiyo xabsi kale oo ay codsadeen, arrintaas oo haatan ay fulisay dowladda Suudaan. dhankiisa taliyaha ciidanka asluubta Suudaan ayaa ammaanay habdhaqanka wanaagsan ee ardayda iyo jaariyadda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan, waxaana uu tilmaamay in 6 qof oo kaliya ay yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalkaasi, taasi oo noqonaysa mid aad u yar marka loo eego tirada guud muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan. sareeyo guud Xaatim Al-Nuur Cabdulqaadir ayaa safiirka uga warbixiyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee 6 ah ee ku jira xabsiga dalka Suudaan dacwadaha lagu soo oogay, xukunada lagu riday iyo muddada ay haatan xiran yihiin. danjira Shoole ayaa u gudbiyey taliyaha ciidanka asluubta ee dalka Suudaan salaan iyo fariin uu uga siday dhigiisa Soomaaliya sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac Goobe, taasi oo ku saabsan xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta labada ciidan. safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ee Khartoum ayaa xoogga saaraysa sidii ay xuquuqda u heli lahaayeen maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dalka Suudaan, iyada oo la qaadan doono tallaabooyinka sharci iyo diblomaasiyadeed ee ku aadan arrintani. warkaas habeen wuxuu idin kaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. dowladda wadanka Sacuudiga ayaa xabsiga ka sii daysay Sheekh Maxamed Xuseen Al-Amuudi oo ah bilyaneer u dhashay dalka Ethiopia kana mid ah wadaadada ugu caansan dalkaas, oo bishii November ee 2017 loo xiray olole ka dhan ah musuqmaasuq. warkan ayaa waxaa xaqiijiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa telefishinka dowladda Ethiopia iyo 2 ilo wareed oo Sacuudiyaan ah ayaa sidoo kale sheegtay in Al-Amuudi la sii daayay. ololihii la dagaalanka musuqmaasuqa ee Sacuudiga ay sameeyeen 2017 ayaa waxaa lagu xiray boqolaal bilyaneero iyo ganacsato, taas oo ahayd tilaabo uu xukunka ku xajisanayay dhaxal sugaha wadankaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. dadaalo lagu sii deynayo Al-Amuudi ayaa bilowday bishii May ee 2018 markii ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed uu Salmaan kula kulmay magaalada Riyadh, iyaga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo maxaabiista u xiran boqortooyada Saudi Arabia ee u dhashay wadanka Ethiopia. warka habeenooda kaga imaanayay Radio Risaale waa naga intaa cidda uu sheego risaala.net ay dib uga heli karaan.